xildhibaane bal ugu horeyn xaaladda Puntland iyo doorashooyinka haatan ay u diyaar garoobayso ee 8 January bismillaah raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii doorashada Puntland ka socota waa doorasho hadee waqtigeedii dhamaaday marka kulli horta muddooyinkii magaalada aan joogay waxyaabihii meelo badan oo doorasho ka dhacaysay ama maamul goboleedyo kale ha ahaato ama dawladda federaalka ha ahaato iyadoo waqtigeeda dhow yahay ma arag yacni sansaan doorasho ama dad maaragtay u ordahaya weli oo sidii doorasho ahaan jiray ka muuqato maahan waxa ugu wacna waxa weeye waa bisaylka iyo horumarka ay doorashada ka gaartay oo ugu horeyso gobolada kale iyo federaalka ugu horeyso dad isku kalsoon oo aad moodid maaragtay in ay iyagu say doonaan maaragtay ama qofkii soo baxay ku kalsoon yihiin meelaha kale markaa tagtay doorashada ay ugu duwan tahay meelo xamaasad leh oo la ordahayo maaragtay qof la durayo qof la dhaleecaynayo yacni habeenii maalin aan la seexan oo madaxdii markaa joogtay ay meelakas ordahayaan oo xildhibaanadii dhex galhayaan baad arki jirtay laakiin halkan waxaad moodaa dad iskuba kalsoon oo mid walba uu leeyahay anaa soo baxaya iyo anna haddaan soo bixin dhib male marka runtii aad baan waxaan uga mahadcelinayaa qaabka doorashada u socoto deganaanshaha shacabka laftigiisa say ugu qanacsan yihiin marka waxaan leeyahay taas ka laga rabaa goobaha kale ama dawladda federaalka ama maamulada kale sida aan halkan ku arkay oo kalsoonidu ka muuqato in meel kasta kalsooni la gasho meel kastoo doorasho ka dhacaysana waxaan uga digayaa dawladda federaalka inayna faragelin ku samayn oo sida hadda Puntland u madax bannaan tahay oo iyagu doorashadooda u wataan oo dhibaato iyo cidna aanay cidna meel geenin in meelaha kale saa ugu madax bannaanadan baan ayana uga digaya inay saa ayna samaynin marka aad iyo aad baan arrintaas maaragtay ugu hambalyeynaya watay Puntland in badan doorashooyin bay soo galeysay deesan doorashadan tii lixaad ahayn muddana waad u soo joogtay nin siyaasi oo ay aragna waa u soo ahayd doorashada Puntland haatan galeysay iyo qaabka ololaheedu u socdo maxaa uu uga duwan yahay aragti ahaantaada kuwii hore waxay uga duwan tahay runtii in badan bay uga duwan tahay maxaa yeelay kuwii hore waxaa laga yaabay 3 ama 5 ama 6 ama 7 markii u badnaado 10 inay tartamaysay mararka qaarkood 3 tartamaysay laakiin maanta tan waxay uga duwan tahay madaxweyne ku-xigeenada tartamaya waa dhowr iyo 10 madaxda tartamaysa oo kursiga ku tartamaysa waa 28 bay sii cagacageenayaan laga yaabo qaar kale inay yimaadaan oo hadda ilaa 30 bay sii cagacageynaysaa marka halkaa waxaad ka garanaysaa bisaylka la gaaray iyo horumarka iyo dawladnimada iyo Puntland oo loo arkay qof walba u arkay inay tahay hooyadii federaalka aasaaskii meeshii Soomaaliya isaga keenay marka nin walba markuu wuxuu arkay inuu ku dhiirado si uu Soomaaliya meesha ay maanta taalo qof ka sii qaadi karo loo helo marka taasi uga duwan tahay taasna waxa keenaya in la tuso maamulada kale ama dawladda federaalka la tuso qaymaha iyo awoodda Puntland ay ku leedahay dawladda federaalka ama ay ku leedahay maamul goboleedyada taas halka ka xoojinaysa caalamkana waxay tusaysaa in Puntland ay tahay meel amnigeeda iyo horumarkeeda isku haleyn karo oo sida hadda loo tartamayo maaragtay wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka iyo u tartamaan ama wadamada Afrikaanka u tartamayaan oo kale baa halka waxa ka muuqata inay tahay Puntland dawladahana qaaday oo runtii aad moodidba inay la tartamayso wadamada hore maray sida ay u tartamayaan marka taasna waa wax lagu farxay marka taasi kaga duwanta watay deegaanada Soomaalida haatan doorashooyin badan baa ka soo dhacay aan soo xusno tii ka dhacday deegaanada koonfur galbeed dawladda federaalka ayaa lagu eedeynayay inay faragelin ku hayso Puntland waxay ka mid tahay deegaanada ay hayaan dawladda federaalka gaar ahaan madaxda haatan xilka haya laftigeeda saameyn ku leedahay dawladda federaalka ama faragelin arrimaha doorashooyinka iyo ololaha haatan ka socda deegaanada Puntland horta arrimaha hadda socdaa waxay ka mid tahay dhaxalkii laga dhaxlay 8 February 2017 ka dhaxalkii laga dhaxlay ka mid dawladda hadda dhisan oo xilliga la aasaasay wixii loo aasaasay yaani taageerada shacabka ay heshay meesha ay martay maaragtay dadku u taageeray hankii laga filayay lagama helin shacabkii Soomaaliyeed oo 48 saac caalamka gudihiisa ama gudaha uga banaan baxay madaxda dalku waxay ugu abaalgudeen in ay burburiyaan ama ay iska hor keenaan maamuladii dhisnaa oo federalismka ahaa inay ku seexdaan habeenaya maayeen federaal rabin oo federaalkii la dagaalamaan su'aasha aad weydiiso aad leedahay faragelin miyay ku haysaa faragelin waxay ku haysaa 100% bay ku haysaa waxa ka dhacay galmudug waad aragtay si u kala qaybisay oo laba group u kala qaybisay waxay hadda u maciilisanaysaa iyo u jilba jibsanaysaa waxa weeye waa meesha la yiraahdo
puntland iyo jubbaland baa hadda ku xigta koonfur galbeed waad la socotaa waxa ka dhacay dhimashaa ka dhacday dhaawac baa ka dhacay dagaal baa ka dhacay ciidamo etoobiyana loo adeegsaday wax allaale wixii koonfur galbeed ka dhacayna dowladda federaalka ah mas-uuliyaddeeda qaadaysa oo ama wixii dhintay ha ahaadeen wixii dhaawacmay ha ahaadeen maamul kasta oo dhismahayana dowladda federaalka ah marka ay hore ay dhismayso oo la aasaasaya maamulkaas baa waxaa laga rabaa dowladda federaalka ah inay bixiso amnigii meesha lagu sugayay ciidankii amnigiisii iyo dhaqaalihii ku bixday inay iyadu mas-uul qaado inay kaloo kafaalo qaado ay shirkaasu meeshuu ka dhacayo inay ayana maaragtay amnigoodii kafaalo qaado wixii dhaqaale ku baxayana iyadoo ay bixiso horta waa marka maamulku curdan yahay oo kow la aasaasayo dowladda intaasaa laga rabaa maamulkii mar hadduu dhismay oo baarlamaan yeeshay oo madaxweyne yeeshay oo sharcigii iyo dastuurkii yeeshay dowladda federaalka keliya mid keliyahay goobjoog waxay ka noqon kartaa inay goobjoog ka noqoto oo ay ogaato sida doorashadaas u dhacayso ee goobjoog ka ahaato laakiin dowladda federaalka ahu dastuuriyan iyo sharci midna xaq uma lahan inay faragelin ku samayso inay tirahda maamulkaas anaa wax u yeerinaya ninkaan raba ha la ii doorto dhaqaale ay ku bixiso taas xaq uma leh sharcina ma ahan waana qodobada dastuuriga oo ay ku tunteen oo dowladdu geeska martay puntland laftigeeda haddii ay maanta awoodi karaan sida baydhabo ay u galeen si ka xun bay u gey lahayd waxay u gey lahayd sida galmudug ay ku sameeyeen bay u gey lahayd laakiin waxay og yihiin puntland inay tahay meel gaamurtay oo nabadda jecel oo dowladda maantay la dagaalamaysa federaalismka la dagaalamaysa oo gobolada maantay maamulka dhisan la dagaalamaysa inay tahay puntland meeshii laga aasaasay oo la geeyey oo soo celisay dowladnimada maanta ay ku faanaan marka puntland waxay og yihiin inay tahay meel ismadeedu kala dambeeyaan meel siyaasiyiinteedu kala dambeeyaan meel aan degdeg maaragtay loo burburin karin ama aan looga hortegi karin marka taasi wax walba ku kala duwan yihiin watay waxaa xustay in dowladda federaalka Soomaaliya ay faragelin ku hayso arrimaha doorashooyinka Puntland iyo ololayaasha haatan ka socda maxaad ka muujin ka dhaa ama ka xusi ka dhaa faragelinahaas haddee qofka asagoo sii jeeda haddii dhamas margeeda looga dhifto oo mid kale uu yahay tii ku socota soo qofku taa ka carirmayo waxay arrintaas horta waa arrin iska cad wax qarsoon maahan nimankaas buurta filla Soomaaliya saaran runtii meeshii la rabay labadan sano maanta wax ay faanaan ku faanaan ay ahayd oo wax ay qabta ay ku faanaan ahayd waxay ka bilaabeen waxa la yiraahdo lobbying siyaasadeed oo waxay u hanqaltaagayeen 2020ka say u noqon lahaayeen dawlad gaamurtay oo xukunka dib ugu soo noqon lahaayeen tala xuma heshay waxay ka bilaabeen soo noqoshadooda 2020 waxay ka bilaabeen inay horta marka hore shacabka Soomaaliyeed oo dawladnimada jecel inay meediyaha markasta kala hadlaan oo hadal macaan oo iska boota oo kala xayaha dhaaf horta inay ka sheegaan inay xayeysiin sameeyaan oo TV-ga qaranka ka xayeysiiyaan ciidan meel ku tababaranaya hotel dhistay lagu shiraayo aad u qurux badan ay ku xayeysiinayaan annaga qabanay maamuladii dhisnaa inay u soo jeensadeen iyagoo federalismka la diray oo isqarinaya si 2020ka ay u soo noqdaan inay bilaabeen ay yiraahdeen waxaan sameeynaa geedka la yiraahdo nin ayaga looyal u ah oo ka tala qaata oo awoodii maamul goboleedku dastuuriyan lahaa daciifiya si 2020ka ay u keensadaan nin ayaga u shaqeeyo xildhibaan u soo xula horta taas awgeed nimanku waxaad dagaalka ay meel bahaw ugu hawa ka hayaan sidii ari dawac gasho maaragtay maalinba neef lagala haro oo hadda meel ugu hawa ka hayaan waxa weeye arrintaasi raadinayaan maamul goboleed inay maamul u sameystaan bay raadinayaan marka labadan sano wixii ay qaban lahaayeen oo ku faani lahaayeen wuxuu noqday inay maamulada dhisnaa la dagaalamaan wixii dhisnaa ay kubcin lahaayeen siyaasiyiintii ka aragti duwan inay la dagaalamaan ciddii tirada waxaana khaldan inay la dagaalamaan horta nimanku halkaasaa loo bankooda siyaasiyaed noqdeen oo ay shacabkana been aan jirin oo khiyaali u sheegaan laakiin shacabka waxaan u sheegayaa oo maanta labadana nimanka la baxay ay ku maamulhayaan war niman dowladnimo nimanka ka sugina shacabka Soomaaliyeed bay dowladnimo u taalaa shacabka Soomaaliyeed waxa laga shaqeynaa si laba la isugu dir lahaa laga shaqeynaya taa horta nin walba waa inuu ogaadaa qolada taageersan nimankaas labadana la baxay inta taageersan laba qof baa taageersan qof saddexaad ma taageersana qof jidbaysan oo qabiil ku taageersan oo qabiilnimo gubtay oo qabiil ku taageersan oo le madaxweyne fiican oo reebel ah noo yimid waa
mid ku taageersan sadanad hotel laga bixiyo Facebook xoogaa meel loogu shubo loo diro hotel laga seexiyo sadanad loo sheego la yiri maxaa waxaad noqonaysaa wasiir baan ka dhigaynaa safiir baan ka dhigaynaa horta labadaas qof baa taageersan labada qofna kama fakirin war bari nimankan waa meesha waa ka baxayaan mustaqbalka Soomaaliya maxaa doona kama fakirin marka qof walba horta taas ogaad xilwaan dadka dawladda aad u dhaliila baa kamid tahay wax badan hadda waa sheegtay hadii aan Puntland u soo noqono koonfur galbeed waa la ogaayo dawladdu waxay wadatay wasiir xukuumadda ka tirsanaa inta is casilay koonfur galbeed ee lafta gareen waa la ogyahay in madaxweyne uu wadatay laakiin Puntland hadda maxaa cadayna u haysaa in dawladda federaalku ay faragelin ku hayso doorashadeeda maxay noo sheegi kartaa oo muuqda horta inay faragelin ku hayso horta waa iska cadahay ana nimanka xoogaa la joogo la degan oo dhex jooga haddii ay awoodi weyday oo ay awood u weyday inay maaragtay si koonfur galbeed ciidan ka awood badan ama xaro u adeegsato in ayaga dhexdooda la isu adeegsado in ay awoodi waayeen sida koonfur galbeed xildhibaanadu intay u soo reereen xamar inta u keeneen ay hotel u waxayeen ballanqaadyo u sameeyay awoodi waayeen oo Puntland ta awoodi waayeen Puntland qorshaha ay la magan yihiin waxa weeye nin rag ayagu ay dawada ka riixayaan oo ay ballanqaadyo sameeyeen horta waa jiraan waa tartami doonaan laakiin raggaas magacyadooda waxaan sheegi doonaa maalmaha u dambaysa laakiin waxa hadda soo socda imaanaya xildhibaanadii Puntland laga doortay ama wasiir ha ahaadeen oo deegaanada Puntland ka soo jeedeen ama xildhibaan ha ahaadeen oo federaalka Puntland laga doortay ha ahaadeen kuwaas maanta lagu soo adeegsanaya oo shirkii u dambeeyay oo habeen hore madaxtooyada ka dhacay oo lagu abaabulay oo la yiri nin walba waxaad keentaa reerkaaga u tag kii laba xildhibaan leh hal xildhibaan waa inaad keentid kii shan xildhibaan leh waa inaad saddex keentid kii 10 xildhibaan leh waa inaad 8 xildhibaan keentid horta qorshahaas socdo dadkii xildhibaanadii qabiil iyo jifa loo dhaxgalo oo lagu abaabulo la yiraahdo haye dawladda federaalka ballanqaad baa idinka wadnaa bastoolad baa adiga lagu siinaya mushaarka baarlamaanka federaalka qataa lagu siina yaani ballanqaadyo fara badan baa loo ballanqaaday baa la soo ballanqaaday oo xildhibaanada la rabo in lagu dhaxgalo oo ninka marka ay daynayeen ninka hana loo doorto laakiin taas waxaan leeyahay xildhibaanadan dawlad goboleedka Puntland taladaas la imaan doona waana wax cad oo qorsheysan hadii la idin la yimaadana hadii laba idinka u taala baarlamaanka Puntland la doortay oo dhalinyaro badan laba u taala labada u taala waxa weeye talada xun oo guracan oo Soomaaliya lagu baabiinayo oo federalismkii lagu baabiinayo inay qaataan oo beentaas sadanada ah oo la sheegay inay qaataan oo talada qaataan iyo in aqliga iyo maskaxdu iyo aqoontu shaqeyso oo ay ogaadaan inayna gacantooda Puntland ku burburin oo ay gacantooda ku hormariyaan Puntland ay ku hormariyaan labada mid baa laga rabaa